konton sano ayay 600 oo nin dishay waxaana ku dishay makeup hahay waa makeup-ka ay isticmaalaan dumarku walina isku qurxiyaan what gabadhan oo magaceeda laho Juliana Tefana ama Julia Tefana waxay dhalatay bilowgii qarnigii 17aad waxaana ku dhalatay magaalada Palermo ee dalka Talyaaniga qarniga 17aad waxa waaye reer Yurub soo kabanaysay guurka noocu ahaa mid aad u fudud gabadha caashaqdana waxa kaliya ta kaaxiga in tiraadad ma ku guursanaa gabadhuna ha mooyee may sidoo dhahaba ma yaqaanin waxa noodaysaa inay markaas ay jirtay rag la'aan alla oge ونياد تاسيا نقول جورك مر حديث جورسدان نيك ناكتنا أيشان رير موجر وحده فرنين والله بدو قفسان سو جورسدان أيول جوس قبيان إلا جيردو كلك حيسو حتى هذه لما أنا يسفهم ويان أشوف عن عبايان سداس أشوف قبيان أسفور معيان وأنا سجدين شرين أبوقس أي كودن ولا شرين حاجة قارنا دمر كوابي جراع شرين وصون كودا أيلو سبح شرين إلى مدة دين يردغن من بقى لهين قيمها دمر كنا ما أنا يقانين aduu almuhim labada qof markay isku ursan ee todobada ka soo baxaan xiraaradu kala dhamaato ay buuq iyo dagaal ay bilooban jireen kadib dumarkiina waxa ku badatay dhibta ila wata sida dameeraha loo dilayay waxay gabadhan Juliana ku nooleed magaalada Roma ee caasimadda Talyaaniga waxaana haysatay koofeer ay dumarka isku qurxiyaan halkaas ay dumarkana ku xal warsan jirtay kadib dumarkuna waxay u sheegi jireen dhibaatooyinka ka haysta guriga inayna ku qanacsaneen ninka la joogto inay ku degdegtay guurkeedii sidoo kalena dhibaatooyin buuq ay ku wada jiraan ee guriga waxaan u sheegay si kasta ay rag asla dhaqmaan inay dilaan manu jirin wax kala kaxeynaya labadooda aan ahayn illa geerid mooyaane oo furninkaas uu jirin gabadhan Juliana halkaas ay uga soo baxday fursadeedii kadib markaas ay gabadhan kaasatay inay caawiso dumarkan laakiin si ay u caawinaysaa manimanka ay soo canaanan mise way soo dacweyn mise furninka ay waajib ka dhigin mise inta u tagto ay ku soo qayranaysaa may saas maaha hawsh markale ayaan ku leeyay saas maaha hadaba waasee waxay gabadhan Juliana ku caawinaysaa dumarka in gabigoodaba raggan ay qabaan ay qudhaqooda jirto ay dilaan ay dumarkuna noqdaan wada carmal meelan oo carruurtoodana ay ka dhigaan aabalaan shaytaan la hawla wala quwwata kadib Juliana saas ay ku hawlgashay oo fikradii ay bilowday hadaba Juliana si dadka ma caawiso uma baahan ciidamo sidoo kalena ma baahan dawlad sidoo kale dhaqaale ma baahneen si ay u disho raggan dumarkooda dhibay kadib dumarkaasuna ay u raaxaystaan oo nolol fiican saas ay ku helaan waxaana sameysay kaarta in iyadu sunteeda ay gacanteeda ku sameyso waxaana ka dhabaysay maamaad ahayd sud dumar lagama sar gaaro suntaas waxay ka sameeynaysay curiyaha loo yaqaano arsenic kadib waxay ku dar jirtay make upka suntan aakhirkii waxa loo bixiyay aqua tofana gabadhan waxay dumarka siin jirtay suntan aqua tofana ee ka sameysan curiyaha arsenic ee sunta ah kadib dumarkuna sidaas ay kaga takhlus jireen ragooda waxaan la sheegay maadaama make upku ahaa mid bilaadhana bila idaba inay sidaas ugu dir jirtay make-upka oo ugu barx jirtay suntaas kadib dumarku waxay ugu dar jireen khamrigooda ragga say u cabaan waradu raggaas waxa laayay wax la dhaho make-upkaas xataa gabadhan si aan looga shakiin inay gurigooda suntaalo ama in yar xitaa sun ay taalo waxay sunta ku shubi jirtay quraaradaha ay make-upka ay ku shubaan ee u yaalay koofeerkeeda kadib waxa saas lagu moodiyaa ama la moodi jiray make-up inna kama shaqeey jireen suntaasna waxa ahayd mid aad u xoog badan oo afar dhibcood ku dhata ay dilisay ragga ma karakaas dhigtaan dhakhtarka la geeyna si kasta loo baarana lagama soo helin wax cadeena iyo wax cabeen oo laga waayay suntaba mar hadii sunta laga waayay wax cadeen la lahayna waa la iska jiray ragaas gabadhan ganacsigeedii dilkaana waxa uu gaaray magaalooyin badan waa ka mid tahay Talyaaniga xataa magaalada ku dhalatay ay ka soo jeeday way gaarsiisay sidaas ayayna 50 sano ku socotay hawsheedii dilka ahaa waxaana aaminsanay in caawinayso dumarkaas dhibta ku jira waxaana naftooda dhaafsay amba ku dhaka jirtay in ka badan 600 oo nin laakiin waxay looday in wax kasta oo bilow ay leeyihiin dhamaad waxa la soo gaaray xilligii ay 600 ee nin dishay iyada laga dhigi lahaa 601 laakiin sidii ay ku fashilmantay arinteedii gabadh kamid ah garbaha caawinaysay ay ka iibisay suntii kadib ay ninkeedii gabadhaas ugu dartay maraq laakiin markii arintaas sameysay aad ay waxaan aqsanayd xanaaqa ayaa madax maray markii ay ninkeeda soo agdhigtay maraqii uu siri fuuqo oo afku si waday ay ogaatay oo miirkeedu soo noqday xanaaqina ka tagay markaas ay canaanatay oo ninkii uu marqa si cabiya ay marqi ka toortay lama baahna in la sharxo oo in badan aad ku aragteen hindiga kadib ninkii ayaa gabadhii weydiiyay waxa ku soo kordhay wax isgeedsaba aakhirkii way sheegtay kadib waxa uu dhiibay booliska kadib gabadhii booliska ayaa wareystay waxaana sheegtay in ay suntan ka soo iibsatay Julia kadib Juliana ayaa ogaatay in askartu soo socoto xageeda kadib ay Juliana miciin badatay kiniisadu dhaweyd askartina way ka xishootay in kabaha la gasho kiniisadaas kadib ay askarti gelisay been ah in suntii 600 ee lagu dilay ay gabadhan ku dartay meelaha biyo mareenka ay ka soo maraan magaalada kuwaas oo ka cabaan Rome kadib ay shacabkii ku soo kaceen kiniisadii way dumin gaadheen kadib kiniisadii ay dibadda iska soo tuurtay sidaas ay askartina ku qaadatay
waxaana gashay jeel sir ah oo aan la garanayn meel uu ku yaalo kadib halkaas ay ku martay ciqaab kaste oo nooc kaste ayaa loo ciqaabay oo waa loo jirdilay kadib ay qaratay kontonkii sano waxay soo sameynaysay iyo 600 oo nin ay dishay kadib kaniisadii ayaa ku xukuntay in la dildilo oo qudha laga jaro halkaas ayana ku dhimatay gabadhii loo oran jiray Fuliana sidoo kale waxa la raaciyay 3 dumar oo caawin jiray sidoo kale waxa la soo raaciyay dumarkii Armalka ee markaa dawladda ka iibisay ragooda dilay intii markaas la garanayay iyagana dil ayaa lagu xukumay intii markaa dilka gaadhina jeelka ayaa la galiyay intii la wareysanayay iyadana waxay sheegtay inay dhashay gabadh iyadana sidoo kale gabadhaas ninkeedii wax dilay kole suntaasun ay ku dishay gabadhan Fuliana ahaan waxay gabadh Armala oo ninkeedii meel ku dambeeyay iyo wax dilay wala garan waayay kole wuxuu ninkii ugu horeeyay iyadoo gacan gala ay suntaas ku tijaabiso ay tijaabada saa ugu soo baxday waxaana gabadhaas loo bixiyay gumeysihii Armalka ahaa intaas kuma kan badaadii shadkeedina ee war laga siqdaba qaatay dawladii aakhirkana waxa lagu dilay dad caan ah dadkaas iyaga sidaas kale garan waayay wax dilay intaas ay maanta ku eegay barnaamijkeeni wixii ka kordhay iyo wixii aad ka faantayba bartana wasa commentiga inoo raab